sharciga horyaala waanada ah in aan 5 daqiiqo aadan igu koobin waxoogaa yar aad wax u martaa deeqsi inaad noqoto waxay ku dhisaan jeclaan lahaa waa hadday raalli ka noqdaan mahadsanidin mudane guddoomiye sharciga horyaala tan iyo markii oo 2000 iyo markii ay dawladdii 60kii ilaa 69kii jamhuuriyaddii koowaad la afgembiyey ka bacdina midii oo xigtay jamhuuriyaddii labaad oo kacaanka ahaydna iyadana ay xilgabtay ilaa 2004 ilaa maanta waxaanu ku jirnaa sideebaa loo dhisayaa jamhuuriyaddan saddexaad ee cusub la dhisay aan weli ku jirnaa weli waxaan ku jirnaa jamhuuriyad dhisid kamana aanan bixin haddaba markii oo la dhisayo dawlad waxa ugu horeeya oo ugu muhiimsan dokumentiga ugu horeeya oo ugu muhiimsan waxa weeyaan dastuurka marka la sameeyo dokumentiga labaad oo ahmiyada gaarka leh oo la sameeyo waa xeer hoosaadka oo golaha shacabka ama golaha baarlamaanka federaalka dokumentiga saddexaad ee xiga waxa weeyaan kan jinsiyadda waayo mar haddii aad gobonimadii samayso qofkii iska lahaa shacbiga ahaa in la sameeyo waayo shacbi waa magac guud laakiin mufradkiisi waa muwaadiniinta laysku daro ayaa shacbi noqonaya marka kan jinsiyadda waxaa weeyaan ahmiyadda xigtaasa weeyaan ahmiyadda kale xigta waxaa weeyaan kan doorashooyinka waxaa loo keenay waxaa weeye marka heybta jamhuuriyadda masalan aad eegto dastuurkeena aad ka eegto heybteeda waxaa ka mid ah waa dimuqraadi waa federaali waa ilaa akhiri waxaa ku xiga uu dhahayaa oo isla qodobka koowaad oo faqradiisa koowaad oona dhahayaa jamhuuriyadda waxay ku dhisan tahay matalaadda shacbiga oo loo dhan yahay marka matalaadda waxaa weeyaan sharcigan ayuu ku saabsan yahay marka waa muhiim sharcigana horyaallo in maaragta si oo qoto dheer inaan uga doodno aan u fiirino waxaa dokumentaalka xigaya sharciyada xigaya waxaa ka mid ah markaas ka bacdi kan axsaabta barbar soconaya waxaa kusii xigaya nidaamka xukuumadda ama government ordinance ay yidhaahdaan ilaa akhirihi marka garsoorkaa lasii galaya ilaa akhiri marka haddii aan sharcigan aan u fiirino si aan ugu soo xirno dastuurka aan ugu soo xirno waxaan marka u horeysa aan fiirin karnaa qaybta dhismaha gobonimada uu suubina qodobka koowaad faqradiisa koowaad dhismaha jamhuuriyadda ama heybta waxay ku sheegan tahay in uu ku dhisan yahay matalaadda shacbiga oo loo dhan yahay iyo nidaamka axsaabta siyaasadeed ee badan halkan wuxuu hor iyo horaanba hoosta ka xariiqay matalaadda shacbiga loo dhan yahay taasi waa magaciisa wuxuu tilmaamayaa sharcigan ay kusoo xirmayaa markii aad fiiriso qaybtiisa labaadna wuxuu leeyahay dastuurka oo wuxuu xaqiijinayaa in allahu subxaanahu watacaala ka sokow dhammaan awoodaha gobonnimada lagu sheegayo ma aha qabiil aan u dhashay kaas ma aha waxaa weeye awoodaha gobonnimada la yidhahdaa waa tan meesha aan goobta aan fadhino waxay ka mid tahay awoodda sharci dejinta awoodda fulinta iyo awoodda garsoorka marka gobonnimada saddexaasay ka koobantaa marka wuxuu leeyahay awoodda gobonnimada oo dhan waxaa iska leh shacbigaa leh wuxuuna awooddiisa u adeegsanayaa hadda eeg si toos ah ama isagoo adeegsanayo hay-adihiisa u doon si toos ah waa markuu codaynayo oo ku ridayo muwaadin kasta oo ku ridayo waa adeegsigii tooska ah marka uu sida dadban u isticmaalayo waa markii annaka golaheenna uu ku samaynayo korjoogtaynta xukuumadda uu ku samaynayo iyo shuruucda uu dejinayo ayaa ay tahay marka haddaan kasii soconno haddana qodobka 22 marka aan eegno dastuurka aan ka eegno wuxuu xeerinayaa muwaadin kasta xaq ayuu u leeyahay inuu ka qayb galo arrimaha dowladda xuquuqdaasoo ay ka mid yihiin muwaadiniinta inay samaysan karaan axsaab siyaasadeed kana qaybgeli karaan kana howlqaban karaan xisbiga gudihiisa waxaa kaloo sii leeyahay in xisbiga dhexdiisa uu ka qaban karo xilkii loo dhiibto active uu ka noqon karayo ayaa iyadana uu noo sheegaya haddaan ka gudubno waxaan la geysa haddana qodobka 46 ee dastuurka qaybtiisa koowaad wuxuu leeyahay dastuurku wuxuu haddiiba sii caddaynaya oo qeexaya awoodda xukunka la isugu talinayo waxay ka bilaabataa kuna dhammaataa shacabka waxaa la wixii markaa yani awooddii sidii hore usoo sheegay laakiin haddana wuxuu ku leeyahay wixii la isku qabto asagaa la weydina waa marka referendumyada la samaynayo ay ka mid tahay oo ka mid ah doorashooyin 46 faqradiisa labaad nidaamka matalaadda waa in uu ahaadaa tan loo fiirsado waa inuu ahaadaa mid furan
oo qof walba fursad u siinaya inuu ka qayb galo howlaha dowladda. wuu sii wadayaa wuxuu leeyahay habraacyada qodobada nidaamka matalaadana waa inay ahaadaan kuwa fudud oo si sahlan loo fahmi karo. faqradii saddexaad ee 143 wuxuu leeyahay nidaamka matalaadda waa inuu ahaadaa mid lagu qanci karo oo la garwaaqsan karo inuu yahay mid ka hortegaya loogana gaashaamanaya qalabaasaha ama khilaafaadka ka soo dhalan kara tartamada siyaasadeed iyo natiijooyinka doorashada. taana waxaa weeyaan weli wuxuu kasii degayaa wuxuu daba joogaa sharcigan laga doonayo inuu maragta xeeriyo nidaamka doorashooyinka iyo axsaabta siyaasadeed. wuxuu ku sheegayaa qodobka 47 ee dastuurka baarlamaanka federaalka Soomaaliya awood u siinaya inuu ka soo saaro shuruuc gaar ah oo xeerinaya 1 axsaabta siyaasadeed iyo diiwaangelintooda, 2 sharciga doorashooyinka oo heer federaal ah, 3 sharciga lagu dhisay guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka. mahad allah leh kuwaasoo dhan waa wada samaynay oo xilkii waa ka gudanay. baarlamaankii 9 bay ku dhammaatay. haddase waxaan u horyaallaa waa sharcigan oo asagan dastuuriyanna laga sugayo waajibna ay tahay inaan darisno oo aan marta aan dhammaystirno. haddii marba ilaahay gacantooda ka soo bixi xukuumadda inala taallo in maaragtaa si fiican looga baarantago. qodobka 64 ee dastuurka wuxuu xeerinayaa in shacbigu si toos ah qarsoodi ah oo codayn madax bannaan ah ku dooranayo wakiilada ku matalaya golaha shacabka. sidoo kale qodobka 72 ee dastuurka wuxuu xeerinayaa in shacabka dowlad kasta goboleed uu si toos ah oo qarsoodi ah codayn madax bannaan ku dooranayo wakiilada dowlad goboleedyada ku matalayso aqalka sare. marka taana waxaa weeyaan doorasho toos ah oo haddana sharciga saameynaya. markaan usoo noqdo nooca doorashada, marka haddii intaa qodob aan isu darno waa maxay nooca doorashada oo dastuurkayna tilmaamay waa noocee? ilaa noocyo badan baa jireen. haddaba markii aan isu geyno micnaha iyo ujeedooyinka qodobada kor ku xusan, nooca doorashada oo dastuurkeenu tilmaamay waa nidaam doorasho sugaya hirgelinta adeegsiga doorashooyinka uu leeyahay muwaadin kasta oo buuxiyey shuruudaha sharciga, inuu si toos ah qarsoodi ah caadil ah oo siman qofkiiba hal cod ah oo codayn xor ah uga qayb qaato codaynta iyo doorashooyinka. waa nidaamka loo yaqaano nidaamkaas haddii oo la sugeeyey wuxuu noqonayaa nidaamka sugidda hirgelinta xaqa codaynta iyo doorashooyinka muwaadinku leeyahay, oo afka carbeed ku noqonayo تطبيق حق المواطن للتصويت والانتخابات. afka qalaad oo ingiriisigana ay ka sheegaan universal suffrage. marka ereygan la yidhaahdo one man one vote oo waa xalqabsi, waa slogan oo shardi ka mid ah shuruudaha ee ma aha nidaamka laftirkiisa ma aha. marka one man one vote waa lasoo fududeeyey, waxaana loogu talagalay in dadka intiisa caamada ah ay ku fahmaan universal universal suffrage. marka sidaas daraaddeed haddii one man one vote keligeed aad tiraahdo waxaad ka tagtay xaqii oo in la xeeriyo xaqii ayaa aad ka tagtay. laakiin one man one vote waa la dhihi karaa, hase yeeshee waa sugidda wixii dastuurka u damaano qaaday in sharcigan lagu hirgeliyo ayaa ujeeddada ay tahay. marka waa nidaamka noocaas way kanaan dooranay. haddaba dejinta heshiiska sharciga doorashada waxaa ugu muhiimsan hor iyo horaan in si cad loo qeexo cutubka koowaad ee koobaya mabaadi'da guud iyo loo marayo iyo habraacyada loo marayo. habraacyada nidaamkaasi loo marayo ayay ku fiican tahay. haddaba sida aan kor ku soo sheegnay qodobka 46 qodobkiisa faqradiisa 3 wuxuu xeeriyey in habraacyadu iyo qodobada nidaamka matalaadda ay ahaadaan kuwa fudud oo si sahlan loo fahmi karo. hindisaha ina horyaala mudana guddoomiye inkastoo ay ku dhan yihiin mabaadi'dii nidaamyadii habraacyadii, haddana sida ay martaa ay u rasaysan yihiin cutubyada iyo taxaalka iyo taxanaashada qodobada looga baahan yahay si waahay looga fahmi karo. iska dhaaf ninka muwaadinka caadiga ee qofka siyaasiga ay dhib ku tahay,
in maaragtaa uu isu soo xiro imisaba qodobada si ay isu taxmayaan iyo cutubyada si ay isugu xirmi lahaayeen guddiga runtii waxaan filayaa guddigeenna oo xildhibaanada nooga soo shaqeeyay in arrintaas ay fahmeen waxaanse moodayaa inay yaro ka xishoodeen in haddii ay soo raraan oo qodobada ay soo raraan inaad u aragtaan wax cusub ay la yimaadeen wax cusub maa laakiin waxaad u baahan tahay si loo fahmo muwaadinkan uu fahmo siyaasiga uu fahmo axsaab siyaasiga ay u fahmaan in rasayntaasi iyo taxaalka qodobada laysu soo raro ayaan soo jeedinayaa taana waxaa lagu sameeyaa marka intaan la gelinba sharciga waxaa la sameeyaa lafalafihiisa waxa aad tidhaahdaan maxaa lahay lafalafaha oo sida isu qaxay qalfoofna lafalafo waayo qalfoof wax ibna waayo skeleton af ingiriis skeleton noqona skeleton waa lafalafaha sida oo iskoolka lagu soo baray haddaba ma haddaad fiiriso masalan haddii aan rabno inaan isu soo ururino mudana guddoomiye igran lahaa haddaan dheeraado haddaan isu soo rabno waxaa masalan qodobka koowaad waxaan rabnaa inuu noqdo magaca ujeeddada iyo baaxadda sharciga kulli waa ku jiraan laakiin kulligaan waxaa qodobka koowaad qodobka afaraad qodobka shanaad oo cutub koowaad ah kulligood waxay isku noqon karaan hal qodob ayaa laysugu keeni karaa tusaale ahaana waan soo jeedin doonaa qodobka xigsanaya oo labaad inuu noqdo laga rabo waxaa waaye muddada xilhaynta hadda hor yaallo waxay geeyeen waxaa uu ku yaallaa qodobka 14aad oo cutubka labaad uu jiraa meeshii laga rabay inuu qodobka labaad uu noqdo ee cutubka koowaad tirada xildhibaanada la dooranaya labada aqal ee baarlamaanka federaalka cutubka labaad uu jiraa meeshii laga rabay inuu noqdo qodobka saddexaad shuruudaha codbixiyayaasha cutubka saddexaad uu jiraa oo cutubka saddexaad 16 ayuu tegey shuruudaha musharaxiinta oo la rabay inay noqdo qodobka shanaad uu yimaado 26aad buu jiraa oo cutubka afaraad baa la geeyey muwaadiniinta sharci ahaan ka reeban codbixinta waxay jirtaa cutubka saddexaad uu jiraa meeshii laga rabay inuu noqdo qodobka lixaad midaynta doorashooyinka muddaynta doorashooyinka qodobka 14aad uu jiraa meeshii oo laga rabay inuu noqdo qodobka 7aad dalka oo loo kala qaybiyo degaan doorashooyin ma cadda hase yeeshee waxay geeyeen qodobka 11aad ay geeyeen meeshii laga rabay inuu noqdo qodobka 8aad sidoo kale qodobka 9aad marka la yimaado waa inuu caddeeyaa marka waa maxay nidaamka doorashooyinka aanu dooranay oo dastuurkana faray si waafaqsan lagu sameeyo taa ayagana waxay geeyeen cutubka labaad meeshii laga rabay inuu noqdo cutubka koowaad ka bacdi waxaa raacaya cutubyadan oo kaalmaynaya habraacyadii qalabkii maamulkii haddii oo dunuub la galo ilaa aakhiri ayaa imaanaya ilaa oo hoos laga gaaro masalan tusaale ahaan haddaad soo qaato markii qodobka koowaad tusaale ahaan aan soo qaatay keliya mawada akhrinayo laakiin 1 iyo 4 iyo 5 hal qodob aan ka dhigaynaa baan sidee u soo baxayaa haddii sidaas aan u sameyn annagoo ixtiraamayn fiiran ugu yeelanayna dastuurka masalan qodobka koowaad magaca ujeeddada iyo baaxadda sharciga faqradda koowaad si loo sugo hirgelinta adeegsiga xaqa siyaasadeed ee muwaadinku leeyahay iyo matalaadda shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliyeed kadib markuu arkay soo jeedintii golaha wasiirada federaalka lambarkeedu yahay intaas ee 2019 wuxuu ansixiyey sharcigan oo loogu magac daray sharciga doorashooyinka xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka si waafaqsan qodobka koowaad iyo qodobka 22aad iyo qodobka 46aad ee dastuurka federaalka soomaaliya faqradda labaad hadba haddii doorashooyinka xubnaha labada aqal ee baarlamaanka federaalka isku mar oo wada jir ah loo qabto ama si kala gooni oo kala goor ah waxaa lagu hirgelinayaa laguna maamulayaa isla sharciga faqradda saddexaad sharcigan wuxuu awood sharci ku yeelanayaa laguna hirgelinayaa geyiga dowladda federaalka oo dhan waxaana lagu soo saaray si waafaqsan qodobka 47aad ee dastuurka federaalka qodobka koowaad meeshaasaan ku xiraynaa masala waxaa markaa wuxuu kulmiyey qodobkii meesha hadday ku tahay 1 iyo 4 iyo 5 hal ayuu isku noqonaya faqradda labaad waa muhiimtan martaa inaan soo qaadno qodobka labaad waxaa aad uu ku sheegan yahay
qodobka 14 ee cutubka labaad ku sheegay laakiin annagu waxaan soo jeedinaynaa inuu noqdo qodobka labaad faqradda koowaad si waafaqsan qodobka 6aad ee faqradiisa koowaad ee dastuurka federaalka muddada xilhaynta madal kasta oo laanta sharci dejinta federaalka la dooranayo waa 4 sano oo ka bilaabata taariikhda si rasmi ah loogu dhawaaqay natiijada doorashada waxaynu ku eg tahay halka fursada waxaynu ku eg tahay markii la dhiso baarlamaanka xiga ee bedeli lahaa baarlamaanka markaas fadhiya si waafaqsan sharciga 20 sharciga lambarkiisu yahay 27 Juun 2016 kuna saabsan wax ka bedelkii dastuurka qodobkiisa 6aad lagu kordhiyay faqrad 3aad mudane haddaa xasuusan tihiin baarlamaanka 9aad qodobkan oo 6aad wuxuu ku kordhiyay faqrad maadaama siyaasadeen ay xasilooneen oo isbedel u jirayo in baarlamaanka kani uu fadhinayo ilaa baarlamaan kale yimaado haddii doorasho dhici weyso uu joogaya يعني وحاويان extension معها وحاودي ليا فراق إنه جمهورية البرلمان أودا فراق دون ورا الحاج لكن معناه ده وحاويان دورش مدين برلمان كانوا فدينا برلمان كسجالات مثلا الهندي سوحيكو أجين أغسطس كل أبوكم إلا إنتون لكن وحوسي كورني أو أي ظروفها جليين إلى أفر بوحال الداري لحي لبعتن تطلي لبعتن كي ديسمبر معناه ده وحاويان برلمان كان تبنات madashiisi waxay ku eg tahay December 2020 haddii doorasho dhici weyso baarlamaanka waa sii jiraya waa sii soconaya uu joogaya muddo kororsi maaha laakiin waxa weeye wuxuu diidaa faraaq haddii hal sano ay gasho sanado waa jooga haddii laba gasho labada uu joogaya taasna waxaad ku arki doontaan sharciga oo markaasi golihii shacbiga uu ansixiyay golaha shacbiga ee baarlamaanka 9aadna wuxuu ahaa labada xilba isaga isku hayay aqalka oo labada aqal ee golaha shacabka iyo aqalka saraasa isku haysaa daraaad meeshii golaha shacabka aad ku akhrisaan sharcigaas micnihiisu waa baarlamaanka federaalka faqradda labaad labada aqal ee baarlamaanka federaalka haddii doorashadooda si wada jir ah loo qabto natiijada doorashadan isku taariikh lagu soo dhawaaqo waxaa kulankooda ugu horeeya la qabanayaa 30 maalmood gudahood oo ka bilaabata maalinta natiijada lagu dhawaaqay aan ka ahayn haddii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed arrin degdeg ah oo markaa jirta awgeed ay la haboonaato inuu isugu yeero in muddada korkuusan ka hor la qabto macnaheedu waxa way 30 maalmood gudahood ka hor ayuu u yeeran karaa haddii arrin degdeg ay jirto faqradda 3aad haddiise ay doorashada la qabto taariikh kala duwan oo natiijada lagu kala dhawaaqo taariikho kala duwan aqal walba waxaa kulankiisa ugu horeeya la qabanayaa 30 maalmood gudahood ka bilaabato maalintii mid walba natiijada doorashadiisa lagu dhawaaqay aan ka ahayn haddii madaxweynaha uu intaas waxaa tusaale ahaan labadaas qodob ayaan soo qaaday laakiin ilaa 5 cutub waan qornay iyagoo sidaa oo tartiibsan haddana magaciisa waxaan rajaynayaa inaan dib u gudbino haddii aan leeyahay mudan gudoomiye lafaha aan ka magaciisa lafaha oo markaa oo aan ka hadlayo waxaa maqal baan ahay xogeynta u gudbin doonaa haddii ay la haboonaato inuu guddiga ka naqaystaan sida ay u samaysmayso waxaa waye sida laysu kala rarayo loo soo rarayo laysku keenay si taxaalka rasaynta cutubyada iyo taxaalka qodobada ay ku caddaato markii aan fiirino qodobka 11aad faqradiisa labaad mudana gudoomiye nidaamka doorashada dastuurkeenu tilmaamay wuxuu ku hirgeli karaa dalkeena oo dhan markii loo qaybiyo deegaan doorasho kastana loo cayimo tirada kuraasta ay qoonda ahaan u leedahay dowladda oo gudata waajibkeeda oo ah in dhammaan muwaadiniinta buuxiyey shuruudaha ay u sugto amnigii iyo rugihii lagu codaynayay iyo haddii la kuuro yahay waxyaabihii oo loo baahnaa marka meesha xaq iyo waajib baa jira xaq waxaa muwaadinku wuxuu yeeshay xaqii codaynta in markaa oo si madax bannaan uu codeeyo waajib waxay ku tahay inuu codeeyo laakiin waajibka saaran xukuumadda ka culus kan oo muwaadinka waxaa suurtoobi karta aniga oo muwaadin ah inaan codaynin fardul kifaaya camal noqonaysa haddii dadka badankiisa ay codeeyeen waxaa suurtoobi inaan codaynin
laakiin xaqa aan leeyahay waxay tahay in meel aan ii dhow oo maarata rugihii lagu codaynayo la ii keeno amnigii la ii sugo in maarata si xura aan u codayn karo ilaa aakhirihii waajibaadkaas waa lagama maarmaan haddii tusaalaha usoo qaadano nidaamyadii hore masalan haddaan ka soo qaadano 61dii 1961 waa markii ay tirada shacbiga Soomaaliyeed lagu sheegi jiray 3.5 milyan waxaa la sameynayay doorashadii ugu horeysay oo la dhigay referendumka oo dastuurka waxaa markaa dalka uu ka koobnaa 36 deegaan doorasho 36 degmo bal male imise rugood baa la dhigay jamhuuriyadda dhan oo la sameeyey labada degmo oo ugu yaraa oo ugu tiri yaraa waxay ahayd berbere iyo laascaanood berbere waxaa la dhigay 118 goobood oo lagu coday laascaanoodna waxaa la dhigay 117 waxaa yaraa tuulooyinkooda ma baaxsaneen kasta waa urursan yihiin laakiin markii jubbooyinkii meelaha aad timaado degmadiiba 140 160 intaasaa la dhigay adi wadar ahaan waxay noqotay 5,227 rugood ayaa la dhigay rug walbana waxaa looga baahan yahay 4 qof ugu yaraan inay joogaan guddoomiye 2 hubiye ah iyo 1 xogeeye marka 5,004 ku dhufo 20 weer hadda maanta ma suurtagelaysa laakiin inta dadaalka dadaalo waa laga maarmaan yani waajibaadka saaran waa culayskiisa xukuumadda ayaan u sheegay ama ciddii diyaarinaysa guddiga madaxa bannaan hadday noqoto marka qodobka 43 ee dastuurkeena wuxuu farayaa in nidaamka matalaadda inuu ahaado mid furan oo qof walba fursad u siinaya inuu ka qayb qaato haddaba fiirsa inuu ahaado mid furan mid walba yani qof walba micnaheeda shacbiga oo dhan waaye intii uu buuxisay shuruudaha in ka qayb galayo inkastoo guddigu uu si fiican usoo fiiriyey usoo shaqeeyey oo uu hadda ka wanaagsan yahay sidii hore oo xukuumadda ay disaan kusoo gudbisay haddana qodobka 11 ee nidaamka doorashooyinka yani haddana hor yaallo guddiga caloosh unbuu ka furfuray oo yidhi kursi walba waxaa toosa loo dooranaa buu yidhi waa hagaag waa tallaabo horumar ah waaye laakiin liiskii wili koruu ka xiran yahay waa 275 marka taa ma habboon tahay mise waxaa ka habboon in maarata si kale oo axsaabtan ay ka bixi karaan oo in suurtageli karto loo sameeyo saa daraaddeed anugu shakhsiyan xildhibaan ahaan waxay la tahay waan soo jeedinayaa in liiska meel baanu gaarnay nimayo waxaa fiican Soomaaliya marka waxbaan gaarnaa guusha aan gaarnaysa naga xumaan aan haysano lagama maarmaan 2016 markii hore waxoo dhan waa isku jacbursanaayeen xamara laga sameynay carta lagu sameynay ilaa aakhiri laakiin 16 waxaa la gaaray in la deegaameeyo la goboleeyo aan idhaahdo gobollada la gaarsiiyey hadda puntland way taqaanaa inta kuraas ay leedahay south west way taqaanaa inta kuraas meesha agteeda jirto ilaa aakhiri marka in haddii taas aan gaarnay aan laga yani ciriiri la sii gelinin oo colaad dambana ay nagu samaynin oo qalaaska isugu ficin waxaa la qaatay iyadoo sidaas ay tahay inaan kasii horumarino aan idhaahno yani guddiga madax bannaan iyo in laga dhigo heer goboleedka ay joogtay in guddiga madax bannaan iyo dowlad goboleedyada ay wada tashadaan inta kuraas oo ay degmooyin u diri karaan inay u diraan meeshii hadda masalan south west aan ka soo qaado meeshii baydhabo keliya ay ahayd maanta waxay geyn kartaa baydhabo ay geyn kartaa xudur ay geyn kartaa bardaal ay geyn kartaa burak ay geyn kartaa baraw ay geyn kartaa abgo ay geyn kartaa inta kale ay la samayn karin baydhabo ay reebi kartaa sidoo kale ii sheeg puntland in badan bay geyn kartaa garoowe gaalkacyo mش عارف إيه إلى آخره boosaaso qardho waa la geyn karaa marka inaan ka hor yani inaan si tadriij ah dalkaan aan u wadno tabarteena inaan ogaano sida oo marata shareecadii sunnada aan ku soo baranayna dhahayso raxima allahu rajulan carafa qadra nafsi yani ilaahay naxariistiisa u sugnaanaysa qofkii ogaada heerka kartida tabarta iyo taagta iyo tabarta iyo kartidiisa ay gaarsiisan tahay karta marka inaanu garanno si tadriiji ah dalka aan u wadno annagoo tixgelinayna wacyiga ummaddeena meeshuu gaarsiiyey marka taa waxaa ila tahay marataay taa waxay keenaysaa xisbiga masalan oo ku tartamaya 4 kursi ee la geeyey xudur 4taas kursi u tartama
kan bay u tartamay meesha 275 u tartamayna leex ugeer hanoo ka shacbiga intuu ka soo kobcayo yani wacyigiisa ka soo kacay aan u turno shacbiga axsaabta siyaasiga oo kale haddii aan wax ka nidhaahno oo ayagana ay ku xiran tahay arrintan ay ku xiran tahay su'aalaad badan baan isweydiiyey oo shakhsiyan ah runtaa fiican in la sameeyo anigu waa diidanahay waxaan ma diidanin waxaan ka mid ahay dadkii u horseeday in axsaab siyaasadeed sharcigiisa u ka dhiirgalo dalkan ayaan ka mid ahaa weliba markii ay xukuumaddii waagaas jirtay ee ka gaabisay waxaan u bixinay xildhibaano gaar ah 22 xildhibaan baan u bixinay private initiative aan ku qaadanay ma aha xukuumadda ma keen baarlamaanka ayaa kaxeeyey oo dowladdu xukuumaddu waxaan u weydiinay war ra'yigeena ku soo darsadaan saasay ku socotay ku socdeen dhammaan waxaa loo jeedaa guddiyadaan samaysan oo madax bannaan iyo kulligood saasaan ku wadnay oo baarlamaanka 9 ku soo saaray igama aha marka ka hor imaad maaha waxaan rabaa inaan loo naxariiso axsaab siyaasadeed loo naxariiso waxaan uga jeedaa liiskaas oo la furo hadda xiran in laga dhigo 6 liis oo kale oo 6 liis oo gobolada loo diro kabacdina la degmeeyo iyo gobolka banaadir lagu daro taas waa mid waa naxariis loogu naxariisanayo axsaab siyaasi waa naxariis aan ugu naxariisanayno shacbigeena waa arrin yaraynaysa waxyaabo dhibaatooyin caloosma oo cusub ay naga reebaysaayo hadda meeshaan gaarsiinsanayo tan kale waxaa markii hore oo xukuumadda ay soo jeedisay waxa la yidhahdo threshold ama shardiga ah magaciisii haddaadan 19 xildhibaan helin ka kaca tahay guddiga waa ku soo dadaalina waxay keeneen 4% waa 13 xildhibaan 13 xildhibaan wax yar maaha sideedana waxaad ogaataan caalamkana u fiirsada threshold haddaa aragto shuruudahaasi waxay ka hiilisaa axsaabta yaryar waxay u hiilisaa axsaabta waaweyn siiba xisbiga markaa xaakimka ah soomaaliya waa jirtay ereygaas in mar la keenay waxaana keentay israa'iil markaa xaakimka haystay waxay yidhahdeen marka ayaga waa naga fiicnaayeen waxoogaa waxayna xisbigii keeni waaya hal kursi xisbiga ma baaba'ay waa jirayaa ilaa ninkaa mikrofon ha gabyo ha heesho ha buraamaro shacbiga ma la afjikaayo xisbigiisa ha wato laakiin wuxuu yidhi xisbigii marka la qaybinayo xaasilka ama quotient ay yidhaahdaan quotientaha la qaybinayo xisbigii quotientaha koowaad hal kursi ku keeni waaya qaybta waa ka haraya laakiin hadduu hal kursi keeno qaybta kale wuu kusii jiraya marka quotientaha la samaynayana markaasi ma aha quotienta national oo yacni dalkoo dhan ma aha deegaan doorashadaasi imise qofoodaa codaysay imise kursiyaa taalla loo qaybinaya halkii kursi saasuu ku imaanayaa markaas marka waxaan leeyahay loo naxariiso axsaab siyaasiga jiritaankooda 4 aan laga dhaafo ameen hal kursi hal dhaho ama tika la iskaba daayo ayaan qabaa marka thresholdiga wuxuu keenayaa ha ka cararina ha dhibsanina tira badnaanta axsaab siyaasadeed anuu shakhsiyan waxaan ahay xirti marata oo wax ka soo xigatay allah yarxamu aadan cabdulla cusmaan oo markaa madaxweyne ahaa mar walba oo nagula dardaarmaya ha loo hiiliyo axsaabta yaryar ha la dhowro ha la daryeelo axsaabta yaryar ayuuna oran jiray axsaabta yar waxaa waaye haddii kalluumaysata ay xisbi samaysato haddii beerale ay samaysato haddii fardoole ay samaysato khali lixaalood waxbay ku soo kordhinayaan ra'yi bay keenayaan oo la yaraysan maayo taana meeshaas aan uga baxo arrimaha kale waa waxaa cutubyada kale ila geliyaa madaan guddoomiye anigu waxaan leeyahay arrinta oo kow aan soo jeedinayo oo aan adkaynayo waxay tahay lafaha iyo rasayska cutubyada ha loo fasaxo guddigeenna ka shaqayno hayo inay soo raraan ha u arkin inay cusub tahay waa la soo raraa waa la isu geynaa si marta mafhuumka uu sameeyo arrintaas waa arrin muhiim ah oo aan xildhibaanada ku adkaynayo inaan u fasaxno guddigeenna inuu arrintaasi farsamo ahaan uu isu raro si muwaadinka soomaaliyeed wax u fahmo axsaabta siyaasadeed oo danaynaysa ay u fahamto siyaasiyiintana waxay u fahmaan meesha ay u sameeyeen taasuu fududaynaya wuxuu kaloo fududaynayaa haddii nidaamkaas lasoo qaato madaxweyne guddoomiye mustaqbalka haddii aanu doonno in sharcigan marka uu nagu gudbaayo insha allah oo sidaan aan soo jeeday uu nagu gudbo
waxaa fududaanaya in hadhowdii aan ku dari karno doorashada degmooyinka maxaa lahaye munishiibiyaalka maxaa lahaye golayaasha maamulka ee degmooyinka waxaan ku dari karnaa doorashada nidaamka doorashada ee baarlamaanada goboleed waxaanu ku dari karnaa doorashooyin madaxweyneyaasha goboleed marka wuxuu isu bedeli karaa sharcigaani sharci la yidhaahdo doorashooyinka siyaasiga ayuu isu bedeli karaa waxaa waye faqradun baa lagu daraya faqradun baad faqrad ku korinaysaa wuxuu toosiyaa magaciisa saas daraaddeed markaa wuxuu noqonayaa walaalayaalo haddaad maanta u hiilisaan sharcigan soomaaliya aad u hiiliseen haddii maaragtaa oo aan wuxuuna noqonayaa dhaxalreebkii labaad oo baarlamaankan uu u sameeyey dalka soomaaliyeed aad iyo aad baad umahadsantihiin waxaan ku dadaalayaa hadda ka bacdi inaan waqti badan aan idinka qaadin wixii aniga aan qabo ilaa shan cutub baa iga diyaar ah waxaan u gudbin doonaa guddiga si ay uga naqaystaan malihii ha ogolaadaan ha ka naqaystaan wixii oga anfacay ha kala baxaan wixii kale ha ka joogaan insha allah asalaamu calaykum